الله وبركاته أصحابي كلنتي وعن أو نكسن مال قلبو وأديك الدعوانيسا تبقى ندين حسوسية انتي نيلا سعتي وحا أنا كو بلانسانين إن أسوق قد دونو برنامجيو أي دادكو ست وسوق لا سocon doonaan bartaan ku leeyahay youtube-ka iyo weliba facebook-ga iyadoo markaasi aan soo aruuriyay xogo fara badan oo hadiba midaba ay nooc tahay oo aad la yaabi doontaan oo dhihi doontaan talo Jamiila xagee ka soo aruurisay halahan oo barnaamijyo ama sheekooyin ama ila tale ama dee waxyaabahaas dhan oo isku duuban ah horta intaan u guda galin barnaamijka waa idin salaamay asxaabteyda waxaa igu dhaliyay inaan barnaamij toos ah ka bilaabo youtube-ka iyo facebook-ga taageero fara badan oo hadba fariimo iisoo gudbinaya siiba dhanka youtube-ka oo hadba maalinta ka dambaysa channelkaygu ay sii badanayaan taageerayaasha subscribe-ka saaraya sidaa darteed waxay fariimo iigu soo gudbiyaan oo ileen Jamiiloy war meesha farta un baan isaga haynaaye ma adigaaba nala soo hadlaya sidoo kale asxaab fara badan oo facebook igala xiriira ayaa waxay igu yiraahdaan mar walba Jamiiloy waa dhuntay xageed ka baxday dee mar un wax noogu soo tuur dee caalamku waa fara batay maad nagala soo hadasheed noo soo eegtid intaan u kala gadan sheekada duxdeeda iyo weliba danaanugeeda waxaa jira barnaamijyo kale oo hore u duubay oo asxaaba igula jiraan balse aan waqtigu ii saamaxi lahayn inaan inta isku aadiyo oo lidgareeyo oo jarjaro aan soo gudbiyo balse insha Allah sidaan horada kaga ballan qaadayba waa aan soo gudbin doonaa haddii aan wax yar ka taabto sheekada intaan u galin caalamka maantay waxaa markaasi la caleema saaray madaxweynihii 46aad ee Mareykanka sidaad arkayseen oo caalamka iyo nidaamyada kala socotaan dhanka kale coronavirus iyo maaragtay wadankan Ingiriiska aad buu u kacsan yahay maanta waxaa dhimatay 1810 haddii aanan qaldanayn iminkana aan markaasi isha sii mariyo marka asxaabta Soomaalida ah waliba dadka af Soomaaliga ugu hadla waxaan aad ugu talinaya oo ku wargelinaya oo aan ku waaninaya in ay guryahooda joogaan isla markaana ay ka gaashaantaan cudurkan dilaaga ah ilaaha maaragtay in nooga gaashaami kara oo naga kicin kara laakiin dadaalku ma reebana marka hadaan Soomaalinahay waxaa aad maaragtay bulshadeena aan ku wacyigelinaya inay guryaha joogaan intii ay joogi karaan taksiilaashu waxay leeyihiin daabaas ka soo tuurtuurtu waxun baan soo helayaa laakiin nafta ayaa aad uga muhiimsan inta haddaan ugu baxo waxaan hore idinkugu sheegay in aan soo maaragtay gudbin doono sheeko la magac baxday gabadhii 15 jirka ee jeclaatay adinka ii sheegi doontiin anaa dib idinkaga sheegi doono laakiin su'aasha ugu horeysa waxay tahay adoo 15 sano jira oo weli nolosha ku cusub tahay meel wax laga mara aadan aqoonin baalkii jacayl ahaa hadduu dibnaha kuu dhigo maxaad samayn lahayd horta dee marka anagu waa waaweynahay oo dadka waaweyn ku jirnaahay inteenaan dhinac waa iska marin karnaa laakiin waxaan dhinac iska mari karin dadka dhalinyarada ah oo aan aqoonin bahalka meel laga maro iyo weliba si loola tacaalo doono waxay la soo xiriirtay gabar joogta magaalada Muqdisho oo 15 sano jirta oo dhigatay iskool private ah oo ku yaala lambar 4 haddaad soo qabataan haddii soo qabta laakiin qof jacaylkiisa gudaha ugu jira sida soo qabanaysaan ma soo qaban kartaan gabadha laakiin waxaan idin sheegay inay dhigato iskool ku yaala lambar 4 oo private ah oo laga barto luqadda Ingiriiska gabadhan waxay leedahay iskoolkaas ayaan dhigtaa saaxiibo fara badan waa leeyahay waxaan rabaa Jamiila adiga asxaab fara badan ku xiran tahay in aad taladayda gaarsiiso oo aad codkayga gaarsiiso isla markaana saaxiibada ay ila soo taliyaan ha kula soo taliyaan maxay kugula talin doonaan waxay leedahay anigoo gabar yara oo aan jacayl bartiis aqoonin ayaa waxaan jeclaaday qof maalin walba iga soo hormuuqdo hadda waa maalin walba way dhib badan tahay qotaad jeclaato horta qof maalin walba kaa soo hormuuqda haddana aadan u sheegi karin jacaylkaadi oo aadan dhihi karin war jacaylow qofkanay xakeense wax ugu sheega xakeenka mara waxay leedahay waxaan jeclaaday qof aan maalin walba arko waa hadda maalin walba mana u sheegan karo jacaylkayga xakeenka mara saan ugu sheegaa yaan u soo maraa ma dadkoo dhan baan kaashadaa ma adiga iyo asxaab fara badan oo kale oo saaxiiba aan leeyahan kaashadaa ma waalidkayaan kaashadaa macallimiintaydan kaashadaa
runtii horta waa arrin aad u adag, balse waxaan dhihi lahaa inta aadan degdegin talada badso. dee tala badana waxaa la yidhi mataqaanaa kaada badana waa lagu gulbeeray soomaalidu dhahan. waxaa laga yaabaa haddii aad talada badsato horta inaad xal hesho oo ay saxaab fara badan kula soo taliyaan, taageerayaal badan oo aad heli doonto ay kula soo taliyaan. horta bal intaan sheekada gudaheeda u gelin iyo gabadha yari qofkay jeceshahay, gabadha waxay tiri magacayga ha sheegin, laakiin 2 magac baan leeyahay. marka 2da magac oon leeyahay mid kamid a qaado. midka ay jeclaatan wuxuu yahay inaan kusoo gaabiyo magaceeda Naciima. waa Naciima oo 15 jira oo degan agagaarka lambar 4 kana dhigata iskool private ereedaas. macallinow haddaad maqlayso waxay jeclaatay macallinkeeda u dhiga luqadda Ingiriisiga. waxaanay leedahay ii weydii su'aalahan dadka. su'aalaha ay leedahay dadka ii weydii inta aanan u kala gelin waxay ii sheegtay heesaha ay qalbiga ku sasabto oo ay mar walba dhagaysato mid ka mida. bale waa tane ila dhagaysta. waayahay kama gaaray intaas aan ku hakiyo. yacni shimbiri huma duushaa dalyaqaan ma tahayo meeshii lagu dilo dawgeed ma garataa. yacni waxaaba haysa in ay fariin ugu dhiibto shimbir. bal shimbiro maxaad geyn kartaa? qof jacayl helay dhibkeeda waa leeyahay. balse warkiyaan idinku dheeraynayna su'aalaha ay tiri ii weydii asxaabtaada waxaa ka mid a. waxay tiri ma waxaad leedahay Naciimoy macallinkaada Ingiriisiga ku dhiga hor joogso oo u sheeg jacaylkaada kuna dheh macallinow waa ku jecelahay. wixii iga raacaaba ha iga raacaane. waa lambar 1. lambar 2 ma waxaad leedahay erga u diro oo asxaabtiisa kuwooda ugu dhow macallimiinta intaba qof ka mida u diro ha kuugu sheego jacaylkaada. waa lambar 2. lambar 3 waxay leedahay ayadoo galaaska la buuxo cashirku intuusan dhammaan ardaduna aysan dareerin ma ugu sheegaa ardayda horteeda wixii ka dhacaaba ha ka dhacaanee. waxay leedahay intaas 3daas su'aalood iyadoo su'aalo kale iyo qaybo kale oo ku saabsan sheekada Naciimo ay inoo dambeeyaan. waxay leedahay saaxiibada iga gaarsii 3daas su'aalood ha ila soo taliyaano talo waa tii rabbi, laakiin wax uun ha iisoo sheegaan. gabadhan mar hore ayay fariinteeda iisoo gudbisay, maalinba maalinta ka dambeysa waxay leedahay fariinteeda gudbi. waxaa igu dhaliyey inaan kaamirada mar kale soo hor fariisto anigoo dee hooyaha iska daalan oo ay noqon lahayd inaan xilligan iska seexdo ama aan iska yaranasto haddaan waqti yar helo. ayaa haddana waxaa aad iigu dhalisay oo aad ii xanuujisay sheekada Naciimo. waxaa jira sheekooyin kale oo lamida kuwa Naciimo oo aan insha Allah doonayo inaan idinla soo gudbiyo iyadoo qaarkood aad ay xanuun badan yihiin oo aysan jacayl kaliya ahayn oo ay ku saabsan yihiin arrimo fara badan oo markaasi aad uga xanuunsan doontaan insha Allah. talana idinkaga baahan doonaa iyadoo taladu tii rabbi ay tahay ayaa haddana dadku aysan ka marnayn. waxaa laga yaabaa dhowr qofood haddii ay isku darsadaan fikro ama araah kala duwan in markaasi meesha ugu wanaagsan taladu ay noqoto. waxaad kula talinayaa insha Allah saxaabi oo aan idinka codsanay inaad gabadha la soo talisaan idinkoo fariimaha igu soo hagaajin kara boggayga Facebook Jamiila Xasan Karuun oo marka qoraalka aad uga jeedaan
ha kusoo gudbinina sheekada ama fariimaha commentiga hoostiisa ama videoga hoostiisa ayadoo inta badan aanan arkaynin, laakiin haddii aad igu reebtaan boggayga Facebook ee ah Jamiila Xasan Garuun waa aad arki doontaan oo ugu yaraan 55,000 oo qof ay ku jiraan. ka ayaa ah midka saxda ah. halka ayaad igu soo gudbi kartaan insha Allah wixii fikrada ah ama talooyin ah ee aad siinaysaa Naciimo Yar. insha Allah qaybta dambe barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa inta qof ee talooyinka ugu wanaagsan siisay ayada ayaa markaasi mid ka xulan doonta waa haddii ay anfacdo. haddii talooyin kale ee dheeraada intaa ka baxsan ay Naciimo idinka doorbido ama idinka jeclaatana insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo dib ayaan idinkala soo soconsiin doonaa. waa mahadsantihiin. barnaamijyo kale oo goosgoosa oo kuwan lamida ayaad insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ka daawan doontaan Jamiila channel. subscribe-ka iyo like-ka iyo share-ka adinka leewaay. She love